in dib loo dhigaba ay tahay oonba laga hadlin haddaad tiraad wax kasta solution baan u helaya dee solution uma heli karto wax kasta waqti baa jira hadda wixii isla noolaanaya isla noolaadana wixii deris noqonaya deris ha noqda amniga guud wadajirka guud wanaagga wax lagu dabaala intaa ha laga shaqeeyo soomaaliya maanta wax dowlad la yidhaahdo oo la xukumi kara way yar yihiin wax yaa xukumi kara waddanka from saylac to raskaboni nation soomaaliya loo yaqaana yaa xukumo qof xukumo male waxa weye dadkii guruubay gacanta ku galeen laakiin inta guruubada isla joogto waxaa la rabaa sidii sooli hadda ay ahaayeen reesisiin ree qaatum ayaga eriyadooda ha loogu imaada markay soomaali miirkeeda kusoo noqdo cidna kursiga dambe uguma fariisanayaan cidna uguma aaba yeelayaan wixii soomaali ay leedahayna miiskooda la saara daylight halkaa jawaankooda ha ku qaataan cid ansixaan loo samaynaya ma jirto kuwa lagu naaxiyaa jira donationka iyo waxa adduunka laga soo qaada برسنتجيada meelaha kala aadaan waa la wada yaqaan dad baa ku naaxa marka maxay aqal gal u tahay ehelnimada iyo waxa la wada leeyahay iyo walaalnimada waa in la isku wadaa guddiyo kalena waa in la abuuraaba wixii hore oo waxa ahan jireen waxba kuma shaqayn kara waa in guddiyo milaaba hadda meesha aan taaganahay maanta Soomaaliga cross roadka ay taaganta rag baa keenay waa oga rag baa keenay laakiin raggaas maxay naga mudan yihiin in ayna ma aha we have to pick up the pieces annaga waa inaan soo aruurinaa qurxunta kala wixii kala jajabay dhaladaan kala daadatay waa in annaga aan soo aruurinaa sida Soomaali iskugu soo celinaa wanaagkeena siyaasad aan ku murmin wax kale aan jirin war adi maxaan ka heli karaa maxaad iga heli kartaa maxaad aan ku qaban karaa maxaad ii qaban kartaa laba gacmood is dhaafay gacalnimo lagu wadaagaa baa leeyahay gacmo is dhaafay dadka tol noqda hoos isu fiiriya war yaa horumar gaari yaa dayaxyada gaari yaa horumar waxba badan ma anaga isku tigeenayn waxba badan meesha ma yaalaan unemployment waa meel kasta waa same 70% dhalinyarada ma shaqeeyaan oo waxa qabiilkaan iyo shaqalaanta iyo murunkaan bakeen meel lagu jeheeyo male industry shaqo ma jiro waxa la business lagu shaqo hadda xamar ay u badan yihiin ragdii miiritaha ay meesha imaada sawiralaga gaaban waxa yiin aan garanay ayay lacagta ayaga hoos gashay oo qaarkood 2 sano markay xamar joogaan ku noqay waa 3 milyan oo ayta lagu leeyahay lacagta ugu keenay ninkan kulli ilaahay baa naga yaqaan kuwaasida mar raba inaan ku daahiyo okay honorable Ismaaciil ku soo dhawo xabiibow soo dhawo dad sharfan baatiyeen maanta waa jimca waddankeenan u duceynaynaa waxaan af ma lihin waa dadkii horaanahay waa iswada naqaanaa inteenan walaalayaal wanaag baan ka talinaynaa iyo wax qeyr qaba iyo Soomaali oo beautiful noqotaan rabnaa meel si gaar ah u jecelnayna ma jirto laakiin ayadoo beautiful noqoto oo istaagto baan rabnaa inaan aragno annagoo gacmaha isu soo taagayna haddaan is arki wayna xitaa haddaan dhimanno at least waa goobadnimo annagoo isjecelo oo aan dhabarka isu jeedinayn soo dhawaa walaalkaa Ismaaciil thank you jibriil walaal aad baad u mahadsan tahay iyo adiga iyo karaam golaha inoo daadihinayay sidoo kale walaaladeena waan salaamayaa meelo joogaanba soo jibriil aad baad u mahadsan tahay inaad na soo dhaweyso marka waxaan kusoo dhaweynayaa xabiib markaa kadib aan hadli doonaa xabiib soo dhawa walaal بسم الله الرحمن الرحيم waan salaamayaa walaalkay karaab oo meesha noo furay jibriil dadku balawooda mashquulsan yihiin aan ka yara gaadhsiiya haddana wamiinaan gaba saari karayn inaynu dadkii group u heshiisiino oyaa bes hadaawa waxaad moodaya aniga hoos u tag marka soo noqo kusoo qabanaynaa xabiib baa ku soconaya thanks xabiib ada jibriil iyo ismaaciil oo ayagana daadinaya waa salaamayaa walaashii canab ambassador adeerkay daahir ayuuna dirir maxamed iyo liibo dhammaantiin waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jamca mubaarak ilaahay ducada iyo maxaan ku idhahdaa rajada oo adeerkay jibriil muujiyey ilaahay ha aqbalo mawduuca kusii soconayaa horta bal labo aa u kala qaado mid waa midda barakicinta shacabka midna waa mid maxaan ku idhahdaa shacabka iyo kooxda xasan sheekh maxamuud aan ku horeeyo midda barakicinta shacabka hortu
waxaad ogtihiin inta dadka aad uga warqabto kooxda xasan niman horto kooxdan waa koox ku heshiisay wax ayaga u gaara yani soomaalidana aan dan u hayn ayaga dhexdoodana aan dan u hayn waxaa la yidhi sir ha qabin saabaa biyo kuu celine in badanna waa arki doontaan ayagoo mid mid u kala siibanayo mid mid isku mucaaradayo sababtoo ah waxa lagu heshiiyey waa baadil ma ahan xaq labadii baadil ku heshiiyey xaq baa kala geeyay waxaan aad ola yaabo ayaan dhaweyta markii dastuurka la ansixinayo xildhibaanadu kulli way wada aamusnaayeen way la dhacsanaayeen because mid kasta waxaa la geliyay rajo waxaa la yidhi waxaad noqonaysaa wasiir waxaad noqonaysaa yani mid kasta gooni baa dhegta loogu sheegay kaaga sii darane guryaha ay degan yihiin ee hoteelada lacagta laga wada dhiibay nin kastana wuxuu qalbiga ku haystay inuu wasiir noqonayo asaga wasiirka laga dhigayo yani hanka iyo maxaanku idhahdaa aqli darada meesha ku jirta fiiri waxa bannaanaa baa u malinaya 4 boos bay ahaayeen iyo u qaybsamaan intee leeyahay lagama fikirin shacabka la barakicinayo nin kaste ee kooxda xasan la ololeysay ahaa wuxuu u ballan qaaday haddii uu xilka qabto inuu guri iyo boos siin doono shacabka la barakicinayo wax kale looma barakicinayo waa ballanqaad hore shakhsiyaad baa la siinayaa ma ahan in lagu fulinayo dan dowladeed ama hanti dowladda ay leedahay lasoo celinayo ma aha shakhsiyaad baa gacanta loo gelin rabaa ganacsato inay dhistaan rabo yani ballanqaadkay ka mid ahay waana waxay caan ku yihiin السلام عليكم وسو دغay anigan 3 minute meelahaas aan soo lugaynaya marka hoteelka isugu keenkeen baa saxa laakiin shacab barakici shakhsiyaad gacanta u geli dee kuwa deganba waa shacab ayaga xaq u leh xitaa oo masaakiin ah dhulku waa ballaaran yahay ciddii rabto inay dhul raadsata ama maxaanku idhahdaa macaash rabto meelo badan oo bannaan oo loo maal gashan karaa jiro dhulku waa aad buu u ballaaran yahay marka kooxdaani wax kale ma rabaan waxay rabaan shacabka inay barakiciyaan shakhsiyaad dhulka gacanta loo geliyo waxaa la yidhi ummadda soomaaliya sideedana mid bay ka siman tahay waxaa la yidhi soomaali haddaa moos la siiyana in loo fiiqay rabtaa dadka mudaharaada iyo arkaysaan ayaga way og yihiin dhulka ay degan yihiin waa dhul dowladeed xilli kastay dowladda u baahan kartaa in maalin kasta loola soo istaago dhulkan lama barakicinayo annagaa iskale hebelaha ka tagna warniyo waxaa leeyahay war dadku dhulku waa ballaaran yahay tashta oo dhul adinka aan leeyihiin dega dadku ma rabaa inay wax qabsato ummadda soomaaliya waxay ka mid tahay hagardaamooyinka iyo ilbaxnimada xumadana haysato dowladdu dhulkeeda ayadaa iskale mar kastay u baahan kartaa ha laga guuro waa sax laakiin kooxda maanta joogto waxaa idiin caddaynayaa ma ahan dowlad waa koox ku heshiisay ummadda inay dhacdo baadil samaysato ballanqaadyana fulinayo waa ka soo horjeedaa shacabkaas in xoog meesha looga barakiciyo waayo kooxdan danta iyo wadamaca ka dambeeya oga nin xildhibaan baabi dhow noo weliba waa kooxda gada ka soo jeeda andaas si cad u cayimo hebel iyo hebel waana ogeyn inaysan wax noqonayn laakiin intanada kale kulli wasiir inaa wada qof kasta asagaa ku jiifay haddaa weynay mucaarad baa noqonaynaa oo maxaa mucaarad ku noqonaysaan dee dantanada lagalama shaqeen dan qof walba wuxuu raadinayaa dan asaga uu khaas wuxuu rabuu raadinayaa waa maafiyo kooxda dalka haysata dagaal sokeeye ma ahaneed every day bay karkariyaan haddaa qodob kale ku daro arrinta baraawe xasan waxay ka mid tahay waxyaalaha xilligii uu mucaaradka ahaa mar kasta lagu eedeyn jiray oo la dhihi jiray fursad baa ku soo martay kamaadan faa'iidaysa iyadoo meeshaas